5 dhaqan oo ay leeyihiin dadka guulaysta waxay si wanaagsan u maamulaan waqtigooda waxayna leeyihiin jadwal maalinle ah oo ay hawlahooda ku qorteen waxayna mudnaanta siiyaan siday u kala muhiimsan yihiin hawlaha ay qabanayaan taasaana keenta inay si fiican hawlahooda u qabtaan. Number 2 akhris joogto ah waa dad wax akhriya oo raadiyo wadooyinka ay mar walba ku guulaysan lahaayeen waa dad baara waxyaabaha ay rabaan inay ku guulaystaan caqabadihiisa waana dad adkaysi u leh caqabadaha soo wajaha aqoonna u leh qaabkii ay u xallin lahaayeen caqabadaha waxayna caqabadaha u arkaan guushii oo soo dhowaatay waxayna ka sii qaadaan niyad wanaag iyo dhiiranaan taana waxaa ka caawiya akhriska badan ee ay akhriyaan buugaagta ku saabsan horumarinta nafta ganacsiga taariikhda dadka guulaystay iyo cilmiyo kala duwan waxayna maskaxdoodu noqotaa mid furan oo ay mar kasta ka helaan fikrado cusub oo dhanka horumarka ah. Number 3 dadka guulaysta waxay leeyihiin yool cad oo ay rabaan inay gaadhaan iyo sababta ay u rabaan inay gaadhaan waxa kale oo ay dhiirigelin ka helaan waxyaabihii ay hore u qabteen isla markaana ay ku guulaysteen. Number 4 waa dad caafimaadkooda ilaaliya waxay seexdaan hurdo ku filan waxay sameeyaan jimicsi waxayna isticmaalaan cuntooyinka kor u qaadaya caafimaadkooda. Number 5 waa dad kalsooni badan ku qaba naftooda waa dad karti leh waxayna yaqaanaan shaqada ay qabanayaan bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda iyo habka ugu fudud ee ay u qaban karaan.